السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك dhammaan asxaabta ku xiran janalka. Waxay noo socday qisooyinkii nebiyada. Maantana waxaynu ka hadli doonaa qisada Nebi Muuse calayhi salaam. Nebi Muuse calayhi salaam waa mid ka mid ah nebiyada Allah u soo diray bini aadamka si ay ugu yeeraan xaqa Alle. Waxaana loo soo diray reer bani Israa'iil. Xilligii Nebi Muuse calayhi salaam oo dhashay, Fircoon waxa uu ahaa boqorkii Masar, wuxuuna cabsi weyn ka qabay in reer bani Israa'iil uu ka dhex dhasho qof burburiya xukunkiisa. Sidaas darteed wuxuu amar ku bixiyey in la dilo wiilasha ay dhalaan reer bani Israa'iil. Hooyadii Nebi Muuse calayhi salaam markii ay dhashay, Ilaah ayaa u waxyooday, wuxuuna u sheegay in ilmaheeda ay ku riddo sanduuq, kadibna ay ku dhex tuurto webiga Niil. Markii ay sidaas samaysay, sanduuqiina ay ku ridday Nebi Muuse calayhi salaam ay raacsiisay webiga. Sanduuqii waxa uu istaagay gurigii Fircoon, waxaana aragtay xaaskii Fircoon ee Aasiya, Allaha ka raali noqday, waxayna u sheegtay inay ilmo ka dhigtaan oo ayaga ay daryeelaan oona ay korsadaan. Ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in Nebi Muuse calayhi salaam ay naas nuujiso hooyadiis, isagoo hooyadii loo keenay si ay u xanaanayso. Sidaas darteedna Nebi Muuse calayhi salaam waa uu badbaaday, wuxuuna ku koray qasrigii Fircoon. Markii Nebi Muuse calayhi salaam uu weynaaday, maalin ayaa uu arkay nin Masri ah oo cadaadinaya nin reer bani Israa'iil ah, wuxuuna damcay inuu ka badbaadiyo. Wuxuuna isku dayay inuu ku dhufto hal feer, ninkiina waa uu dhintay. Muddo kadib waxa uu arkay isla ninkii oo haddana la cadaabayo, wuxuuna isku dayay mar kale inuu ka celiyo, isagoo u soo dhaqaaqay dhankiisa. Markiiba ninkii oo qaylinaya ayaa waxa uu ku yidhi, ma waxaa rabtaa sidii aad ninkii shalay u dishay inaad anigana ii disho? Muddo kadibna arrintii waa ay faaftay, waxayna gaartay qasriga. Nebi Muuse calayhi salaamna waxa uu isku dayay inuu ka baxsado magaalada Masar, wuxuuna u dhaqaaqay magaalada Madyan. Wuxuuna arkay dad ceel ka waraabsanaya xoolo iyo laba gabdhood oo taagan oo aan xoolaha waraabsanayn. Wuxuuna u dhaqaaqay dhankii labada gabdhood, wuxuuna weydiistay inuu caawiyo. Waa uuna caawiyey, wuxuuna u waraabiyey xoolihii. Intaasi kadib gabdhihii waxay u tageen aabbahood, waxayna u sheegeen arrintii ay kala kulmeen ceelka. Aabbahoodna wuxuu u sheegay inay soo kaxeeyaan wiilkaas, waxayna u yimaadeen Nebi Muuse calayhi salaam, waxayna u sheegeen arrintii. Waa uuna soo raacay. Markii uu Nebi Muuse calayhi salaam u yimaaday gabdhihii aabbahood, waxa uu u sheegay arrintii uu kala soo kulmay dhulkii Masar. Nebi Muuse calayhi salaam intaasi kadib wuxuu odaygii u sheegay in uu u shaqeeyo muddo 8 sano ah, uuna siin doono gabar gabdhihiisa ka mid ah. Culimada qaarna waxa ay sheegaan in odaygaasi uu ahaa Nebi Shucayb calayhi salaam. Markii uu dhammaystay muddadii shaqada, Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu kaxaystay xaaskiisii, isagoo dib ugu laabtay dhulkii Masar. Intii ay safarka ku jireen, waxa uu arkay dab ka shidan buur, wuxuuna isku dayay inuu u dhaqaaqo buurtaasuu dabka ka baxayo. Intaasi kadibna waxa uu maqlay codka Alle. Alla subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi, Muusow, anigu waxaan ahay Ilaahaaga, si dhab ahna ii dhegayso. Waxaan kuu doorannay inaad noqoto rasuul. Alla subxaanahu wa tacaala waxuu Nebi Muuse siiyey mucjisooyin. Mucjisooyinkaasina waxaa ka mid ahaa in ushii uu watay ay noqoto mas, iyo sidoo kale in gacantiisa ay iftiinto marka uu ka soo bixiyo jeebkiisa. Waxaana Nebi Muuse calayhi salaam loo diray Fircoon si uu ugu yeero cibaadada Alle. Nebi Muuse calayhi salaam iyo walaalkiisa Haaruun waxay la kulmeen Fircoon, waxayna u sheegeen fariintii Alle u soo dhiibay. Fircoonna waa uu diiday oo uuna ku xadgudbay. Kadibna Fircoon waxa uu keenay sixiroolayaal si ay ula tartamaan Nebi Muuse calayhi salaam. Markii ay la tartameen Nebi Muuse calayhi salaam, sixiroolayaashu waxa ay tuureen xargahoodii si ay ugu ekaadaan mas. Laakiin Nebi Muuse calayhi salaam markii uu tuuray ushiisii, waxay noqotay mas weyn oo liqday dhammaan masaskii kale. Sixiroolayaashii waxay arkeen inaysan tani ahayn sixir, waxayna bilaabeen inay rumeeyaan Nebi Muuse calayhi salaam. Fircoonna waxa uu amar ku bixiyey in la dilo sixiroolayaashii, maadaama ay rumeeyeen Nebi Muuse calayhi salaam. Muddo kadibna Alla subxaanahu wa tacaala waxa uu Nebi Muuse ku amray in isaga iyo reer bani Israa'iil ay ka baxaan dhulka Masar. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu u tagay Fircoon, wuxuuna weydiistay reer bani Israa'iil inuu u fasaxo.
fircoonna waxa uu diiday inuu fasaxo reer bani israa'iil. intaasi kadibna allah waxa uu ku soo dejiyey cadaab kala daran, sida in webiga niil uu isku beddelay dhiig, iyo sidoo kale in lagu soo sii daayey ayax, aboor, rah iyo balaayo kaleba. fircoon markii uu arkay in dhibka uu sii badanayo, waxa uu oggolaaday in reer bani israa'iil ay baxaan. markii nebi muuse calayhi salaam iyo reer bani israa'iil ay isugu imaadeen webigii, waxaa ka daba imaaday ciidamadii fircoon. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxa uu nebi muuse ku amray in ushiisa uu ku dhufto dhulka. alla subxaanahu wa tacaalana waxa uu badda uga furay wadda ay maraan. nebi muuse calayhi salaam iyo reer bani israa'iil waxay mareen waddadii alla subxaanahu wa tacaala uu badda uga jeexay. markii nebi muuse calayhi salaam iyo dadkiisii ay ka gudbeen badda, waxaa soo galay fircoon iyo ciidankiisii. intaasi kadibna waxaa isku imaaday biyihii, fircoon iyo ciidankiisiina waxay ku halaagsameen badda. kadib markii ay badda ka gudbeen, nebi muuse calayhi salaam waxa uu aaday buurta tuuri si uu u helo kitaabka tawraad. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu la hadlay nebi muuse calayhi salaam, waxa uuna siiyey kitaabkii tawraad. laakiin intii uu ku maqnaa, qaar ka mida dadkiisii waxay caabudeen dibi ay ka sameeyeen dahab. markii uu dib ugu soo laabtayna, aad ayuu uga xanaaqay, waxa uuna ciqaabay kuwii sharka la imaaday. nebi muuse calayhi salaam waxa uu ku noolaa dhulkii reer bani israa'iil, waxa uuna dadka baray kitaabka tawraadka. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxa uu u ballanqaaday dhulka barakaysan ee falastiin. laakiin reer bani israa'iil waxay diideen amarkii alleh, waxayna ku dhaceen ciqaab. qisadan teeda xigtana waxaan ku soo qaadan doonnaa qisada nebi haaruun calayhi salaam oo ahaa walaalkii nebi muuse. intaa iyo intayna isaga imanayno kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.